muuqaalkan waxaan aaminsanahay inuu yahay mid ka mid ah muuqaalada ugu faa'iidada badan ee halkaas soo geliyo. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ay leedahay mobile addiction-ka ama isticmaalka badan ee mobile-ka, ama inaad qabatintay mobile-kaagu dhibaatada ay leedahay. Ka waran haddii aan ku dhaho 10 sano ilaa 20 sano cimrigaaga ah haddii aad ku qaadato screen time-ka mobile-kaagu, ka waran intaan oo kaliya. Ka waran haddii 15 sano oo noloshaada ah aad ku qaadato, wax ka xun ma jira. Markaad mobile-ka maalintii aad u isticmaasho, waxyaabaha aad dareemayso waxaa ka mid ah inaad aad noqonayso qof lablaboonay oo kale. Aad isdhehaysid maanta uun yaa ku dhaafiya oo beri ku gaarsiiya. Mobile-ku dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan buu leeyahay. Haddaba saaxiibayaal, inuu screen time-ka mobile-kaagu aad u bato, waxyaabaha keena waxaa ka mid ah inaad tahay qof horta videoska muuqaalada loo yaqaano ee aad u daawada. TikTok laga daawado, sidoo kale Facebook waa laga daawadaa, YouTube xitaa waa laga daawadaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah inaad screen time-ka mobile-kaagu aad u bato, inaad tahay qof musalsalaadka aad u daawada, ama waxaa laga yaabaa inaad tahay qof gaming aad u ciyaara. Barnaamijyada muuqaalada la yiraahdo oo YouTube meelaha soo dhigo ayaa laga yaabaa inaad tahay qof aad u daawada. Waxyaabooyin fara badan ayaa keena inaad screen time-ka mobile-kaagu uu aad u bato. Markaad muuqaalada shorta videoska aad daawanayso, haddii lagu dhaho maxaad ka faa'iiday, ma sheegi kartid. Xitaa awood uma yeelan kartid muuqaalada noloshaada kusoo kordhinaya ama faa'iida leh 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ee soconaya inaad daawato. Sababtoo ah waxaad la qabsatay muuqaalada shorta videoska ahaa ayaa drag oo kale ku noqday. Kuwaas mar walba aad rabto inaad daawato, kuwan muuqaalada dhaadheer oo dhan way ku dhibayaan. Wax walba oo noloshaada wax kusoo kordhinaya ma samayn kartid. Kaliya waxaad rabtaa inaad maanta oo dhan mobile-ka iska isticmaasho. Intaan horta kula wadaagin saddexda qodob, waxaan u baahanahay inaad ogaato application-ka inta badan ee aad waqtiga ku bixiso, ama application-ada inta badan aad waqtiga ku bixiso. Si aad u ogaato application walba maalin walba saacadaha aad isticmaasho, waxaad tagaysaa screen time-ka mobile-kaaga qaybta setting-gada ama qaybta apps-ka adigoo ka xulanaya screen time, ama ku qor qaybta searching-ka screen time. Halkaa baad ku ogaanaysaa application walba saacadaha aad ku bixinayso. Kusoo dhawaada saddexda qodob. Ugu horreyn, isku day application-da inta badan waqtiga kaaga baxa ama waqtiga kaa lumiya inaad mobile-ka qaybta ugu dambeeya aad geyso, ama aad box ku xirto. Mobile-da qaar waxay leeyihiin qaybta setting-kada hide apps, qayb la yiraahdo oo application-da lagu qariyo. Qaybtaas ayaad gelin kartaa. Sidoo kale waxaad samaynaysaa application-da inta badan aad wax ka faa'iido oo wax noloshaada kusoo kordhinaya, ama aad u aragto inaad wax ka faa'iideyso, inaad kuwaas soo dhawaysto oo aad qaybta hore ee wejiga screen-ka mobile-kaaga aad saaratid. Intaas waxay ka caawinaysaa in isla markiiba aad iyaga u badnaato, isla markiiba aad iyaga gasho ayay ka caawinaysaa. Ka kale isagana aad buu muhiim u yahay. Isku day inaad waqtigaaga aad buuxiso, waayo mar walba waqtigaagu faraaqada u badan yahay. Waxaa fudud inaad social media ama screen time-ka mobile-kaagu aad u kordho. Waxaad samayn kartaa xilliyada waqtiyada aad faraaqada leedahay inaad wax noloshaada kusoo kordhinaya aad ku bedesho. Haddii ahaan lahayd inaad xirfado barato, ama aad ibaadaysto, ama xitaa asxaabtaada banooni la soo ciyaarto, ama aad gym gasho. Xitaa caafimaadkaada wax kusoo kordhinaya inaad samayso weeyaan. Laakiin maanta oo dhan telefonka dhowrka saacadood ku bixinaysid, waxaan laga faa'iideynin. Noloshaada taas dib u dhac ku samaynaysaa. Marka waxaa sidoo kale aad samayn kartaa waqtiga inta badan ka luma. Haddii xitaa waqtiga uu badan yahay, tusaale ahaan 10 saacadood maalintii aad haystid, 50% uun ka buuxi. 50% 4 saacadood oo kale wax nolosheeda kusoo kordhinaya ayaan diiradda saaraya dhihi kartaa. Qodobka saddexaad ahna qodobka ugu dambeeya, isku day inaad unfollow wada dhahdo ama unsubscribe wada dhahdo dhammaan channels-ka aadan waxba ka faa'iidin. Okay, mar walba oo muuqaalada notification-ka kusoo dhacaya, waxaa fudud inaad u dhacdo. Indhahaaga soo jiidanaya, waayo waa la qabsatay mogtaa. Indhahaaga soo jiidaysa markiiba waad daawanaysaa. Marka isku day inaad unfollow wada dhahdo dhammaan channels-kaasi,
sidoo kale aad followgooda ama subscribe-kooda aad dasatid kuwa yani aad wax ka faa'iidayso, kuwa noloshaada wax kusoo kordhinaya. waayo waxaa fududaanaya kuwan inaad u badatid, kuwaana dee inaad ka yaraatid. waxaa laga yaabaa inaad midaas yani kugu adkaato aad la qabsan weyso, waayo muuqaalada inta badan aad baratay daawashadooda ayaa mar walba yani aad rabtaa inaad daawato. kuwan uleys baa kaa fuulaya, dopamine dheecaan la yirahdo ayaa jirka bini'aadamka uu soo deeyo. yani qof mar walba oo shay uu ku celiyo waxaas waxay noqonayaan sidii drugs ama ay noqonayaan, yani waxay noqonayaan wax aad la qabsato oo aadan ka maarmin. marka mar walba oo aad yani ku celisid muuqaalada xitaa haddaysan yani adigoo aadan rabin, waxaa fududaanaya inaad marka dambe ay ku noqdaan si drugs oo kale, waxa aadan ka maarmin oo aad ku raaxaysato. okay, sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad yani go'aan aad ka qaadato, waayo haddaysan waxaan dhabka ka ahayn mar walba waxa fudud inaad u dhaadhacdo. marka go'aan adag ka qaado inaadan yani aadan daawanaynin ama aadan subscribe dhaynin channeladaasi ilaa ay muddo ah, ku dar haddana muddada ku dar, yani midaas waxay ku fududaynaysaa inaadan daawan muuqaalada. saddexdan qodob yani sidooda aad u raacdo, waxaan hubaa in isticmaalka badan ee social media uu ka yaraanayo, addictionka aad ku ahayd mobilkaagana yani sidii maanduuriyaha oo kale maanta dhan aadan ka maarmin oo aad rabtid inaad isticmaasho, inuu yani ka yaraanayo ayaan boqolkiiba kalsoonahay. waayo telefoonku waa drag caadi ah markii si loo fiiriyo, kama maarmintid yani waxyaabihii noloshaada aad ku horumarin lahayd ayuu mar walba ka hor istaagaya. yani saacado 2 saacadood ayaa laga yaabaa maalintaada inaad jaanis haystid, 2 saacadood yani iskala soo wax badan oo ka faa'iidi kartaa. haddii 2 saacadood isku dardaro maalin walba 2 saacadood yani isku dardar bishii meeqay noqon kartaa? 60 saacadood ay noqon kartaa. 60 saacadood oo aad xirfad baratayna xirfadda waxaa la dhihi karaa yani waxaad tahay experience aad